السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتوا معنا وناكسن داود يلا سو dhawaad meel walba dunida ka joogtaan halka iga daawaneysaan waa channelka xidigaha banaadir fadlan dadka cusub oo subscribe saara gabalka fursad u noqdo daawada ugu horeeya uu soo gaaro fiidiyoga aan ku soo gudbinayo daawade maanta barnaamijka qodobada ku hay waxaa ka mid noqon doona finaanada caanka ah ee Safiya Tusmo oo guriga leed magaalada Hargeysa laga burburiyay iyadoo afka furatay. haddaba Safiya Tusmo maxaa ku dhacay barnaamijka ayaan ku soo gudbin doonaa. teeda kale ra'iisul wasaare Roble oo lagu eedeeyay barnaamijyo aad u foolxun sheekh ayaa ka hadlay barnaamijka ayaan ku soo gudbin doonaa oo dhahay waaba laga dhaxlayaaba ninka oo asiga banaanka u baxaya telefoonada ku hadlahaye ninka waa laga dhaxlayaa والله waxba jira maalmahan magaalku uu qasan yahay. barnaamijka ayaan ku soo gudbin doonaa ka hormaro fanaanada caanka ah ee Safiya Tusmo gabadhan Soomaaliyeed horta sheekada hadaniga daba geeyo qof walba taqaano waa fanaanad caan ah waa sanadkii tagay 2022 ayay guursatay dhaxdeedii ma dhamaadkiisii daqiiqadii ugu dambeysay iyadoona dhaxaadkii sanadkaasi ceeb waaweyn lugta kula jirtay. Safiya Tusmo dalka ay dib u soo laabatay way guursatay waxa laga dhiibay 100 halaad oo geela lacagtiiba u kaydsato goob u badatay guriga Soomaaliland ka dhisatay Soomaaliland ka dhisatay maxama gurigii muddo u dhisnay guri aad u qurux badan oo bilicdiisa ay dadkii arkay ay soo jiidatay oo aad loo naqshadeeyay ayuu ahaa taasi oo gurigii uu noqday guri aad u qurux badan. waxa dhacday muddo kadib gurigii in burburin lagu qoro oo Safiya Tusmo la yiraahdo gurigaaga waa burburin خلاص بصارن raal naqday Safiya markaas waxay isku dayday inay la xiriirto maamulada qorsheeyo aan shaqada ku lahaay meeshaasi ay u tagtay dadka burburinta ku soo sabay waxa waay wareeg dheer iska daba gashay kuleeto uu guriga waa la burburiyay maanta warka ugu dambeeyay oo arkay wuxuu sheegay guriga Safiya Tusmo ay dhisatay inay ka taagtay calanka Soomaaliya taa aawadeedna ayay dhaxday Safiya in guriga loo burburiyay ay tahay calanka Soomaaliya oo meesha aan ka taagay kuleeto Soomaaliland iyo Soomaaliya markii la dhaho Soomaaliland aad bay uga soo horjeedaa inta badan Soomaaliya waayo khilaaf ka dhaxay waa mid aad u sareeya way soo Soomaaliland adiga ahaantaada kuma xiran kartid wax Soomaaliya ku la xiriira amba calanka Soomaaliya. Safiya taas iyadoo og ayay waxay sameysay guriga ay dhisanaysay oo qarashka badan oo ka galay ayay calanka Soomaaliya ay saaratay ka bacdeen waxa dhacday in guriga muddo kadib burburin lagu sababo taasi waa too meesha taale. Safiya ayaa hadashay warbaahinta inta badan afka qaylo furatay oo tiri sidoo ku dhici kartaa guriga intaaba ay gashay waa guriga waa in la soo celiyay waxa waay guriga asiga lacagta ay sheegtana waa lacag ay xadadeedu aad u badan tahay taas oo ay ku sheegatay maamulka Soomaaliland tiri in lacagteeda la celiyo amba guriga sidiis laga dhigayaan u baahanahay taa cidig jal oo ma seena Safiya ilaa hadda afka ay furanaysaa waxay leedahay in guriga ayaan u baahanahay amba lacagteeda Safiya Tusmo horta inta aan nolosheeda hadda aan u gudin horta sanadkii hore dabayaaqadiisa ay guursatay inta badan arooskeeda wuxuu ahaa aroos laga wada fajaco Soomaalida aad uga yaabiyay markii 100 halaad oo geela hal mar oo loo soo duftiyo la nabad tusayo indhaha loo saaray waa 100 halaad oo geel ah waa tii gabadha saxda laga dhiibi jiray waa tii dhaqankeena ku saabsaneed kasi hor Safiya dhibaato ay ku jirtay oo waa tii yar hor isu yaqaaneen uu yiri waxa waay fiidiyoo yalaan ka haya oo waa kurkaateena oo muddo rakaatay ku jirtay rakaatadii way ka baxday hadda ay waxay la sii kulantay rakaatadii mid ka culus taasi oo guri ay muddo ku taamisaan quruxdiisana ay naqshadiisa laga soo shaqeeyay hal mar oo burburin lagu qoray la qalaasay oo gurigeedii oo faaruq ay u maado burbursan boo afka laga burburiyay guriga saa u jeednana waa guri aad u qurux badan oo aad looga shaqeeyay naqshadiisa oo injineerinta ka shaqeeyeen kuleeto waxa waay si fiican ay yani u naqshadeeyeen gurigaas naqshadiisa aad looga fikiray naqshad fiican yani naqshad fiican ayaa loo degay oo naqshadiisa way fiicneed kuleeto waa ta keent marka in la burburiyo guriga markuu qurux badan yahay goorba de wataqaanaa dalkaas goorba waa ka heleen waxay yireen waa burburin oo helmeena hadii san ugu diidan tahay waa ida sababtay idin oo calanka ka taagatay
marka safiitaas ayaa ku dhacday afka hore ay fiidiyowga aad ku arki doontaan Soomaaliya aan meesha aan ka taagto kuleeto iyada ayaa afkeeda ka qira doonto inaad ma siinteeda kale Roble ayaa la sheegayaa in uu afka furtay ka bacdi sheekh soo hadlay oo yiri asigana Roble waa laga dhaxadlayaa oo waxyaabo badan baa ku dhex jiro Roble oo taqaaniin inuu yahay ra'iisul wasaaraha qaranka Soomaaliya ayaa asigana eedaasi dusha ay ka saaran tahay eedaasi kuleeto waxa waaye eed aad u weyn idoo lagu haystay inuu hoolaha qaranka u adeegsaday dana gaar ah ba hoolaha qaranka ayaa leeyahay sheekh hadda aan arrimihiisa aan arkayay ayaa wuxuu leeyahay ra'iisul wasaaraha waa laga dhaxadlayaa nin oo muddo ka hor 4 sano lagu xukumay ayuu la hadlayaa oo heshiis qandaraas la galayaa oo ninkii waxba ka dhax jabaqleh kuleeto arintaas ma xaqiijin karno kuleeto ninka wuxuu leeyahay hawaaye ra'iisul wasaaraha qaranka ayaa arintaas ku kacayo horta sheekani waxa la yiraahdaa Sheekh Cabdi Xirsi ayaa la yiraahdaa muddo saacada ka hor ayuu ka soo hadlay kuleeto Soomaalidan fursad ay raadsan ma garan karo waxa uu kaga hadlayo ama waxa uu kaga gol leeyahay yani sax iyo qalad waxay tahay laakiin markii la yiraahdo dhanka dawladnimada yani qof walba waa la dhaliili karaa oo dhaliishu way jirtaa mid soo galayso waayo oo hawaayo qof walba mucaarad uu ku noqon karaa waxna ka horjeesan karaa horta hore uma arkin culimada ka hadlaysa arrimaha siyaasadda Soomaaliya sheekhan waa markii ugu horeyso oo aan arko asoo ka hadlay aan ma caday karo sheekh inuu yahay inuu nin kale yahay laakiin waa markii ugu horeyso aan arkayo asoo ka hadlay arrimaha Soomaaliya waxa uu leeyahay shirkii Roble iyo baarlamaankii oo fursad dooninin يعني برنامج أو فرصة دوني إنه حكومة مقارنة أي ماشي وقرنا سوى قرنت أي ماشي وأرك دونتان نك حولي هاي إن رئيس الوزراء هو تيم مدك بعد دقيقة لا أركبه بنانك وأرضي ثلاثة كهات ليه وحولي هاي نين مدك هور الحكومي أو حكون سنة ودلك إنه دين بقى الله حكومي أيو قندراس يو هشيس الله قال إن إذا تاسجر تاي أنا إن مالمين كلا صور في رئيس الوزراء أدلو إيدينا إنه أرمها الصومالية وأدو خصايا إذا أنت بدن رئيس الوزراء شعبك أي تاجر سنين حدنا مدام مالمي ودن بي إنه تاس meesha ay ka sii baxayso waayo waxa lagu eedeeyay ra'iisul wasaaraha in dhul ay dawladda leedahay oo dana gaar ah u adeegsaday taasi oo keentay in ra'iisul wasaaraha maxawaaye yani mas'uuliyadii uu haayay Soomaalidana ay inta badan yani ay ku taageersaneed oo meel kaga dhacay la leeyahay taas aniga ma xaqajin karno laakiin waa hadalka u dhigeen dadka warbaahinta ka soo hadlay iyo dadka hadda ka hadlaya dadka falaqaya arrimaha Soomaaliya siyaasadeeda waxa la leeyahay taasina waxay dib u dhigi kartaa inta khilaafkan uu socdo in doorashada dalka ay ka dhacdo khilaafkan ayaa wuxuu saameyn weyn ku yeelan doonaa doorashada dalka waayo hadii ay isqa qabsi weyn oo meesha soo galo waxa dib u dhici doonaa doorashooyinka dalka waayo dalka waxa waaye muddo sanadkan waxa la rajaynayaa in doorasho ka dhacdo dadka qaarna waxay dadka inta badan arrimaha Soomaaliya falaqeeyna waxay leeyihiin sanadkan yani ma dhici karto doorasho waayo doorashada waqtigeedii waa la dhaafay haddana waxa waaye dhibaatooyin soo laabtay iyo yani xilligii doorashadii la isku diyaar lahaay ayaa waxa maamulada qaar iyagana ay ka soo horjeesteen barnaamijkeen inta ayaan jecelahay inaan ku soo gabagabeeyo waxaan in gudbinayay aniga Cumar Keenana la socodsiinayay barnaamijkan waa barnaamij gaar ah oo aan maalmaha qaar in soo gudbi doono barnaamijka Safiit Ismana Taxana iyo waxa doonaa wixii ku soo kordho ayaan la soo gudbi doonaa iyo Soomaaliland waxay ka tiraahdo in Safiyo hadda waxay taagan tahay guriga ayaan rabaa iyo wax sababay barnaamijka ayaan sigan ku soo gudbi doonaa barnaamijkan waa mid aniga qaasi ah in soo gudbi doono laakiin siyaasadda Soomaaliya ma ahan mid aan hor u sii socdo waa ka saari doonaa barnaamijkan kuma jirto maanta ayay ku soo gudbtay oo barnaamijkan aan sheekhan ayaa sababay inaan kaga hadlo balse taa ani hor u sii socon karo laakiin ta Safiyo waa mid inta youtuberada inta badan ay free u yihiin ay ka hadli karaan laakiin siyaasadeena aniga shaqo iyo shaqo kamili laakiin maanta way soo gashay asxaabta aad ma santiin inta barnaamijkan la socotay fadlan hada YouTube channelka aad ku cusubtahay subscribe saar gambalka furo sad u noqdaa wada ugu horeeyay fiidiyoga aan soo gaaro waana bariya fadlan please saan walaalkiin ahay haddaan walaalkiin ahay in badan waxaan soo gudbi jiray subscribe-kan leega hilmaamin walaalayaalo fiidiyogan hal share garay asxaabadan hal gaarsiyo deesaan anuguna fiis badan oo helo يا ولا ليال باي باي.